Ciidamada Kumaandoosta Xoogga dalka oo kaashanaya taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee magacooda loo soo gaabiyo AFRICOM ayaa duqeyn cirka ah u geystay warshad ay lahaayeen Al-shabaab oo qaraxyada lagu farsameeyo isla markaana lagu keydiyo kuna taala agagaarka degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. War ka soo baxay taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in ay qiimeen hordhac ah oo la sameeyay ay sheegayso in duqeynta lagu dilay 10 ka tirsan Al-shabaab. Warshadan ayaa caan ku ahayd soo saarista qaraxyada ismiidaaminta ah ee Al-shabaab ay ku dhibaateeyaan ummadda Soomaaliyeed, waxaana ujeedku ahaa in aan burburino ayaa lagu yiri warka ka soo baxay taliska ciidamada xoogga dalka. Sidoo kale taliska ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in iyaga oo kaashanaya AFRICOM ay ka go'an tahay la dagaalanka Al-shabaab iyo ururada kale si loo badbaadiyo shacabka aan waxba galabsan ee rag iyo dumar iyo caruur ee ku sugan Soomaaliya iyo wadamada deriska ayaa lagu yiri qoraalka. Mareykanka oo kaashanaya ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa mararka qaarkood duqeymo waxa uu ka fuliyaa deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka, waxaana duqeyntaasi ay ku soo aadaysaa xilli Mareykanka uu dhowaan u sheegay in ciidamadiisa uu kala baxayo gudaha dalka.